السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانتين soo dhawaada waqti kasta idin tahay wanaagsan. Waxaan doonayaa maanta bal inaynu casharadii mararka qaar halkan kusoo tuuri jiray ee teknolojiyadda computer ku saabsanaa inaynu ka yarnasanno. Waxaan doonayaa inaan markaa fiirsto runtii aad u muhiima oo markaa waddankan aan joogay Japan ka jirta inaan la wadaago. Fursadaas markaa waxa weeye scholarship mid ka mid ah scholarshipyada ugu waaweyn ee waddanka Japan oo loo yaqaano JICA ayaa waqti xaadirkan furan. iminka bish waxa weeye bish sagaalaad labadeedii 2025 sagaalkii 40 ayay nootay xaggan Japan kulley waddankii xaggan Africa East Africana waa meelaha saddexda galabnimo. Scholarshipka markaa JICA ayaa la yiraahdaa waa scholarship fully funded ah waxaana ka faa'iideysan karaa haddii aad doonayso master program oo kale ama haddii aad PhD doonayso runtii aad buu ku anfacayaa dhammaan jaamacadaha Japan oo dhan way ku jiraan. sidoo kale every sector ama field kasta oo jaamacad aad uga baahan karto scholarshipkan way ku jirtaa marka waad soo codsan kartaa. marka haddii aad u baahan tahay ama asxaabtaada cid u baahan aad garanayso ama familygaaga insha Allah waxa weeye waad u share gareyn doontaa oo videogan ayaad la wadaagi doontaa. inta badan waxa laga yaabaa scholarshipda internetka inaad ku aragtay ama aad horeba u maqashay scholarshipkan JICA loo yaqaano. anigu waxaan ku korinaya waxa weeye bal inta badan maan arag dad si technical ah u warramaya scholarshipkan halkee la maraa maxaa la qabanayaa. marka waxaan ka hadli doonaa bal waxa jira Excel file inta badan safaaradda laga soo diro safaaradda Soomaaliya ee Japan oo ku taala Nairobi Kenya ku taala. marka scholarshipka email baa lagu diraa waan tusi doonaa emailka oo xaggan hoose aan idin kula wadaagi doonaa. marka Excel file baa la buuxiyaa marka Excel file-ka iyo qaabka loo buuxinayo ayaan insha Allah taala idinku kordhin doonaa oo aan idinka warrami doonaa. dabcan hadda waddankan Japan iminka wiilka hor waxa uu hadlayay ra'iisul wasaaraha waddanka oo wuxuu aad uga hadlayay in ay sanawaadkan soo socda doonayaan ilaa 300,000 oo Afrikaan ah oo arday ah inay tababaraan waliba waxay ku tababarayaan beauty oo aan doonayna ku tababarno AI-ga iyo machine learning-ka. dabcan de kulley way ku jiraan iyaguna fiilalka kale ee marka haddii teknolojiyada la xidhay ama de caafimaadka iyo social science-ka iyo waxyaabaha la xidhay. marka Japan aad bay ugu baahan tahay arday badan oo ay tababarto iyadoo marka ay doonayso in ardayda qaar ay waddanka dib u anfacaan. waddankan Japan waxa ka jirta moogtay dhalmadii ayaa yar marka shaqaale fara badanna waa loo baahdaa. marka dad iyadu tababarto luqadoodina garanaya aqoon ahaana dhisan oo marka dalka iyo waddanka anfaca maadaama dalku dal warshadaha iyo waxyaabaha ku tiirsan uu yahay ayay runtii aad ugu baahan yihiin. marka programka waxa loo yaqaanaa waliba si khaas ah Afrikaanka ayaa loogu talagalay oo waxa loo yaqaanaa ABE baa la yiraahdaa African Business Initiative Education Initiative baa la yiraahdaa. marka haddii aad danaynayso waxaan aad kugula talin lahaa inaad soo xareysato waayo processkiisu uu fudud yahay waa fully funded wax lacag lagama rabo waxa weeye noloshaada iyo wax kasta waa la qabaa. dabcan maan arag arday badan oo Soomaali ah oo marka fursadahan aad uga faa'iideysan maan arag. marka haddii aad doonayso waad soo xareysan kartaa waddankanna waad ku iman kartaa waanaad ka faa'iideysan kartaa oo si sharci ah ayaad ku iman kartaa maadaama ardaynimo aad ku soo gelayso. soo dhawaada videogana markaas sii share gareeya. iminka hadda halkan waxaan ku hayaa folderkan oo markaa ah waxa weeye faylashii ay markaa ay soo dirtay safaaraddu. marka wuxuu ka kooban yahay ilaa 6 fayl buu ka kooban yahay. marka ka ugu horeeya wuxuu ka hadlayaa JICA. marka inagu hadda waxaan xareynaa kan loo yaqaano ABE baa la yiraahdaa African Business Initiative baan xareynaynaa Education Initiative. waliba kan waa 2025 waa inta badan waa isku mid inta badan wax nafla kama bedelaan halkan yeerkun bay bedelaan. marka scholarshipku dhowr day wuxuu maraa process buu maraa sida caadiga ah. marka ABE halkan program outline iyo objectives iyo waxyaabaha loo aasaasay waxyaabahan ka hadlayaa. inta badan waa Afrika waddan Afrikaan ah oo almost qaaradda intaas u kooban tahay. dadka codsanaya looga baahan yahay jooga halkan wixii 40 ka yar ayaa la doonayaa. inta badan wuxuu u baahan yahay si guud inaad haysato waxyaabahan English language la yiraahdo certificate-dan IELTS iyo TOEFL iyo waxyaabahaas. marka waxa muhiim ah must maaha inaad markaad xareynayso aad haysato
waan arki doonaa oo meel baa laga buuxiyaa laakiin maadaama jaamacadihii qaar baa admissionkooda ku xidhan yihiin marka jaamacadaha haddii admissionkooda ku xidhan yihiin waxaa laga yaabaa inay yara restricted noqdaan in haddii aanad kuwan haysan inaan applicationkaaga hore u gudbin waayo waxyaabahan kale waa qualificationka iyo waxyaabahaas marka imika halkan waa kan wuxuu ka kooban yahay application documentiga waa intana muhiima marka inaad soo xarayso marka ugu horeysa oo application form marka inagu application formka waan arki doonaa qaabka loo xareeyo oo halkan waxaad ku arkaysaan inay A1 A2 A3 A4 ilaa up to 6 marka ugu horeysa applicationkaad xareynaysaa waa inaad personal informationkaaga geliso education backgroundka waa inaad geliso organizationka aad ka shaqayso khibradaada declaration oo marka inaad waxaan adigu xogtan inay sax tahay aad declare garayso checklist bayana jira oo ah inaad hubisay dhammaan inaad waxyaabahan oo si sax ah u gelisay marka declaration decided in first place annex 1 ku marka wax weeye waa kan weeye marka undergraduate certificate dii inaad soo xarayso academic transcriptigi passaportkaaga copy marka kuwan waa inaad originalkoodii inaad soo scan garayso mal rabaa hadeer passaportkii 2 sawir marka almost waxa weeye hadeer waxaa la rabaa markaad xareynayso hal sawir laakiin markaad doonayso safaaradda la geeyaa documentiga marka haddii waxyaabahan laftirkooda originalkooda baa la rabaa marka hadhow marka safaaradda geenayso 2 sawir baa laga rabaa iyo waxyaabahan kale waxaa kaloo la rabaa shahaadadii ingiriista cadeynaysay iyo marka health certificate oo marka check ah ka socda marka applicationku wuxuu maraa 4 process maraa marka hore document selection baa la sameeyaa document selection waxa weeye documentigaaga aad dirtay baa la eegayaa documentiga haddaad ka baxdo oo requirementiga hore xagga hore kusoo sheegay inaad buuxiso interview baa lagu ballaminayaa interview marka lagu ballaminayaa wuxuu sameeynaya wax loo yaqaano pre-matching oo marka jaamacadaha iyo waxyaabahaas deena imtixaan baa laga qaadayaa inta badan imtixaamaadka jaamacadaha qaada marka qaar kan u dambeeyo kale ama pre-selection kaas oo kale ama marka qaar imtixaamaadka kale jaamacadaha qaar baan imtixaamaad ba lahayn marka in laga boosiyaa baa laga yaabaa marka waxa muhiim ah marka ugu horeysa inaad kan ka gudubto marka inuu halkaas aynu taagana imika waayahay marka xogtan waa iska akhrisan doontaan marka imika haddaynu galno application formka excel kan buu ku jiraa marka halkan baad xareynaysaa marka waxaad eegtaa meelaha ay ku qoran kalarka huruudiga ama yelowga uu saaran yahay ayuun bad buuxinaysaa meelaha kale aanu saarnayn ma buuxinaysid marka imika halkan oo kale sawirkaagaad soo gelinaysaa marka sawirka saad soo gelinayso simbalidi halkan insert baad leedahay oo sawir baad soo qaadaysa insert picture markaad tahado device baan leeyahay marka sawir umay soo gelaynaa waa sawir kuruman ayaa loogu talagalay marka imkaan hadda mid baan iska geliyay halkan magacaaga marka first name-kaaga family name-ka tusaale oo kale family name-ka magaca awoogo inta badan halkan la geliyaa first name-ka iyo magaca kale haddaad leedahay waa security marka family name-ka iyo first name-ka waa kugu filan genderkaaga xilliga dhalatay waxyaabaha nationality-ga haysato country-ga waddankaad degantay marka haddii aad waddankaaga degantahay waddankaaga ma sheegaysaa magaalada ka degan tahay state-ka oo kale country code-ka waxyaabahan emailkaaga qoraysaa passaportkaaga passport meed haysataa yes baad leedahay halkan meelaha qaar yes bay baahan yihiin oo marka taabato halkaas oo kale calaamadaas soo baxaysa waa inaad iska hubiso emergency contact marka haddii emergency qof baa loo baahan yahay marka qof family-ga unbaa inta badan lagu qoraa marka imika markaan relation taabto calaamadaas soo baxday marka qofkan maxay isu tihiin ma walaalkaaba ma hooyadaaba ma aabahaaba saa sida qoraysaa name-ka marka almost halkan 2 persons baa la rabaa 2 qof marka 2 qof baad gelinaysaa telefoonadooda iyo contact numberkooda iyo emailooda marka education background-ka
aad leedahay su'aalo kale marka waxaad ka soo bilaabaysaa name education institute name of the ayaad ka soo bilaabaysaa marka waxaad ka soo bilaabaysaa number 1 waxaad gelinaysaa halkii aad waxbarashada ka soo bilowday higher education su'aalo kale waxaad isba dhimaysid eedkii baa inta badan laga bilaabaa ama high school ko kale marka eedkii baad ka soo bilaabaysaa waddanku waxa weeye xilligii aad bilowday xilligaad heshay iyo majorka wuxuu ku saabsanaa marka halkan su'aalayaal buu bixinayaa okay marka imika su'aalo kale halkan waxaad gelinaysaa labada khaanad way kala duwan yihiin marka institutionka magaciisa iyo waxaad ka baxday institutionka magaciisa iyo wixii aad ka baxday marka departmentka ama fielkii aad ka baxday ilaa jaamacad saas soo wadaysaa marka imika hadda waxaad arkaysaa in 3 option haysan halkan marka haddii aad degree aad hayso waxa ugu sareeya degree yahay halkan ID-kii baad ka soo bilaabaysaa hadana secretary-gii baad ka xigsiinaysaa hadana degree-gii baad ka xigsiinaysaa okay marka halkan waa shahaadadii oo kale marka haddii aanad haysan halkan waxaad leedahay waad iska diin kartaa saas blank way kaga tagi kartaa maadaama imika aanad haysan haddaad doonto waxaad samayn kartaa dee waad excellent waxyaabahaas aad leedahay marka intan hore waad iska buuxin kartaa halkanna waad iska dhaaf marka imika halkan waxaad gelin kartaa other to be taken other oo kale marka waana iska dhaafi kartaa haddaad u baahantay okay halkan waxaad sheegaysaa your mother thank you marka waa Soomaali okay have you ever been awarded scholarship for studying abroad miyaad weligaa ma heshay scholarship marka haddii aanad helin no baad iska leedahay halkan waad taabanaysaa no baad leedahay marka waad arkaysaa wis qarinaya haddii aad heshay yes baad leedahay are you currently applying an scholarship haddeer miyaad scholarship codsanaysaa other than ABA kana marka mayba la iska yaabaa inta badan haddii kale waxa laga yaabaa inaan soo lis karayn okay have you ever participated in any training course in your country or abroad including any offer JICA miyaad weligaa ka qayb gashay waxay JICA bixinayso marka haddii aad tababaraan aad ka qayb gelin ama JICA ama aad no baad iska leedahay waxaan muhiim maaha haddii aad ka qayb gelin halkaas baa taabanayna waa iska oranaysaa waayahay haddaba kana ugu muhiima inta badan dadka halkan document selectionku waa meelaha ugu xasaasisan ee dadka lagu soo select garayo document selectionka dad ka gudubto interviewgaagana waxa laga yaabaa inuu iska fiicnaado dad si fiican soo gaagayso marka halkan aad u muhiima marka imika sida ABA-ga goolasheeda ku cad qofku inuu dee shaqeeya loo baahan yahay oo weliba sida halkan ku cad page-kan hoose inuu ama meelaha aadka u danaynayaan waxaa ka mid ah marka qofku inuu dowlad u shaqeeyo ministry ama government institution nationalka ama local ama public enterprise oo kale qodobka labaad ee aad u danaynaya waxa qofka higher education-ka ka shaqeeya saddexaad waa private sector dadka shaqeyso marka inta nibadda waa waxa weeye dadweynaha inuu adeega marka aad waxay u danaynayaan dadkaas leadership-ka leh ama ka shaqeeya meela waxay doonayaan dad iyagu ay soo baxa oo Afrika saameyn ku yeesha ayay doonayaan oo markaa gacan qabtaan haddii markaan inta mid ka mid ka shaqeyna marka haddii aad ka shaqeyso almost waxaad leedahay waxaad ka shaqeyso waa nooc oo category marka waxaad leedahay su'aalo kala dawladda u shaqeysa dawladda aan shaqeeya organization ku tayo federal organization oo national government haddaad dawladaha hoose ka shaqeysana waxa weeye local government marka name of the organization meeshaad ka shaqeyso waaxda aad ka shaqeyso positionka aad ka hayso xilliga aad ka bilowday marka haddaad joogto haddaad gelinaysaa saacadaas aad gelinaysaa meeshay ka tirsan tahay telefoonka waxyaabahaas okay marka inta halkan waa iska dhaafaysaa inii waxay raadsanayna meelaha huruudda ku taalla waxaan kala wax xog aad akhrisanayso halkan waa iska questionnaire la xiriira haddii aad militariga qaybka ama military la xiriir marka waxaan noobaa la iska yaadaa haddaad military mar ama tababar military qaadatay ama aad ma garanaysaa ama howlaha mar sharci waxyaabahaas marka waad akhrin doontaa personal civilization organization related activities marka inta badan noobaa la iska yaadaa haddii aanad waxyaabahan aanad marna gelin bahashani aad u muhiim u tahay halkan oo kale maadaama aad soo caddaysay inaad institution u shaqeyso institutionkii markaad caddaysay waxaa loo baahan yahay inaad halkan caddayso
marka date-ka tusaale oo kale date-kan hadeer waa date-ka uu la doonaya in la cadday marka qofkii madaxda u ahaa managerkii ayaad halkan kasoo saxaysaa signature-kiisii marka date-ka halkan gelinaysaa tusaale oo kale maalinta doonaysa inuu saxo magaciisa departmentiga uu yahay hay'ad iyo position ka yahay telefonkiisa emailkiisa waxaana fiicnaan lahayd in email professional oo kana academic business email saxiisa iyo shaambada marka page-kan waxa la sameeyaa kan waa la daabacdaaba sidaas baa lagu daabacaa marka inta soo highlight garayso baad file leedahay deedna print baad leedahay deedna waxaad leedahay aan ilaahdo halkan baad marka waxaad leedahay print selection intaan highlight gareeyo qoray daaba marka intaas oo qura daabacan karta dad printer marka kugu xiran yahay ayaad ku daabacan kartaa haddii kale aanu printer kugu xirnayn oo kale aanad printer haysan waxaad samayn kartaa waxaad leedahay Microsoft print to PDF marka PDF uu kaaga dhigayaa oo print markaad tiraahdo uu kuu save gareynayaa oo magacaad ku qoraysaa deedna intaad flash ku qaadataa soo daabacanaysa deedna qofkii baad ka soo shaambadaynaysaa saasuu fudud yahay marka simply saasuu baad samaynaysaa marka halkan waxa weeye confirmation of nomination by the applicant is present in an organization marka this confirmation is necessary if the application present in an organization haddii marka qofku organization ka shaqeeyo haddii ay tahay markaa wasaaradoo kale ama dowladoo kale ama higher education ayaa loo baahan yahay baa lagu yidhi haddii markaa uu qofka codsanaya aanu ka shaqeyn intaa mid ka midana private sector halkan aad isticmaali kartaa if there is no verbal letter government nomination haddaan hayn tanaad isticmaali kartaa if the applicant is from other institution like private sector ama kanaad isticmaalaysa marka laakiin hadda dowladda u shaqeyso ama higher education oo jaamacadaha iyo meelaha ka shaqeyso kaasaad isticmaalaysaa halkan waxa weeye khibraddaadii marka iyadana aad muhiim tahay marka iyadana sina bixin organization ka shaqeysay meeshaad ka shaqeyn jirtay departmentka ka ahayd intaad ka shaqeynaysa marka provide the information of your work is most recent one after graduating from your higher education okay most recent one will be filled automatically okay if the 3 and 1 person present organization okay marka waxaad ka soo bilaabaysaa kii most recent buu ku yidhi kii u dambeeyey marka kan aad ka shaqaysaad ka bilaabaysaa waxaad ku xigsiinaysaa ilaa kii aad marka afar uma haddaad intaa ka badan ka shaqaynaysid dee afartaa ugu horreyn baad dooranaysaa kii ugu horreeyey kii aad ka shaqayso ka ku xiga ku sixiga waayo waxa laga inaad khibrad badan oo shaqo leedahay haddii aad kii ugu horreeyaad ka shaqaysa ka bilaabato waxaad waayaysaa meelaad ka buuxiso kan u dambeeyaad ka shaqayso marka waxaad ka bilaabaysaa kan u dambeeyaad ka shaqayso ilaa markaad ka gaadhayso intaas okay marka halkan wuxuu yahay baad gelinaysaa oo waa kan part time baad ahay mise full time baad sheegaysaa organizationku wuxuu yahay marka a oo kale halkan dee sidii hore kusoo cadaynaya waa dowladda inaad u shaqayso b baad gelinaysaa halkaas saasad yani shaqadii ugu horeysa waxaad qabatay shaqada markaad hayso ku xiga waxay kala haayeen biiba marka halkan faahfaahin dheeraad ku bixinaya guideline-kan iyo xogahana waa akhrinaysaa si aad u fahanto oo policy-ga waxa weeye marka halkan baad tig la saaraa marka halkan sidaad tig u saaraysaa haddaan halkan tagno aan darow tagno qalinka baan soo qaadayaa tig baan leeyahay marka adigu ama sidii kale aad tig ku saari karto waxaa laga qofa qaab buu yaqaanaa excelka qaabkii kale marka aad tig ku saari karto ayaad u saaraysaa magacaagaad gelinaysaa halkana waad saxiixaysaa marka haddaad saxiixaagu inuu isku mid noqdaa fiican haddaad doonto waad soo upload garan karta haddaad sawir ku hayso scan ku hayso kale halkaasaad dhigaysaa haddii kalena saasaad waxa weeye mouse ku saxiixaysaa date-kana waad saxiixaysaa kadib marka halkanaad markaa waa checklistigan marka mar walba waxaa muhiim ah inaad halkan raacdo oo kuwan iminka personal informationkii educationkii waxa weeye meeshaad ka shaqaysay khibradaada shaqo declaration checklistigaasaan haddeer marayna okay marka checklistiga waa kan checklistiga marka waxyaabahan ayaad hubinaysaa baasaboorka full name-ka ma isku mid baa waxaan isku ku akhrinayaa waxyaabahaas oo dhan marka haddii aad markaa dhammaantood aad yes baad leedahay yes marka halkan waxaad iska gelinaysaa yes ama jaika oo kale waxyaabahaas marka iyaga halkan amiin sorry
halkan waad banaynaysaa waayo intan adigu markaad dhamaysato warqadahan hadhow foomka markaad sidan baad ku gudbini marka iyaga hadhow saxsaxanayo warqadan checklistga marka qaar waaba iska daabacan kartaa halkanna waad ku buuxinaysaa marka iyaga waxay ku talagaleen hadhow waxaad ka hadashay in marka iyaga tigraysanay halkan iyaga check ku qoran shaqada ma adiga applicant-ga waa kan marka inagu inta horuu down baynu shaqadeena tahay okay please check the following after print marka daabacantan hubi marka iyadana waa intana wad hubinaysaa transcript-ga waxyaabahaas oo dhan inay ku diyaar yihiin marka iyagana yes-taasaad furaysaa tanna waa iska dhaafaysaa marka halkan ugu dambaysa magacaagaad gelinaysaa halkanna waxaad leedahay please check the following before submission okay marka yes ma iska qoraysaa halkanna marka waxaad gelinaysaa marka applicant name-ka wuxuu ka soo qarsanaya xagga sare meelaha qaar application-ka dad aragto magacaagii kusii jira xaggan sare ka soo akhrisanaya marka tusaale haddii aan halkan geliyo waxaan gelinayaa ka soo qaad Ali marka waxaa laga yaabaa magacaagii meelo badan buu automatic soo qabsanayaa marka imika halkaa eeg anuu haddeer halkan baan gelin automatic buu soo qabsanaya marka kaagama baahna inaad soo geliso halkanna waa kan almost soo qabsaday okay marka foomka markaad sidaa ku dhamayso marka waxaan tegaynaa university qaybtii jaamacadaha tegaynaa saynu jaamacadaha u doorano marka waxaa la yihahdaa foomka annex 1 baa la yihahdaa annex 1 marka waa kan halkan aad ka eegaysa annex 1 marka sheet-ka ma furaynaa waxaad halkaas magaceenu inuu absolutely kusii jiro research area-da marka research area-da aad muhiim tahay research area maxaan sameynaynaa research area-da waxaan tegi karnaa halkan aan tegi karnaa list of research fields marka imika tusaale halkan baan tegayaa halka form dhan baa yaalo jaamacadihii iyo marka ay ku jiraan marka ugu horeysa intaad jaamacadaha eegin waxaa la eegaa moogtay fielka aad doonaysa adigu imika halkan ay ku wada jiraan marka research section-kaasaan furayaa marka imika tusaale anigu computerkii waxyaabahaas ma la xidhiidha waxaygu marka computer aan furayaa marka tigta inta kale waan ka qaadayaa computerkan saarayaa marka almost waxaa ii soo dhacay marka research area-da intan quseeyo computer architecture circuit waxyaabahaas oo dhan marka code-kaasaan qaadanaya code-kaasaan qaadanaya annexkan ku noqonayaa halkaasaan markaa ku dhufanaya marka waxaad arkaysaa marka aan halkaa ku dhufto halkaa aad ugu fiirsada code-ka markaan qaado wuxuu leeyahay waa computer system related waa intaas oo dhan marka aniga haddeer wuxuu soo saarayaa jaamacadaha markaa haya halkan eega marka hore jaamacada kuma jiraan oo waxaa ku jira oon xog sheegaysa university at which the African department is strongly recommend apply jaamacado lagula talinayo in African department-ga qaybtan scholarship qaabilsan inay apply karayaan university to be accepted so markan enter siiyo waxay soo dhacaya aniga jaamacadaha higher area study aan rabo marka kuwa green-ka ahi oo yaqbalayaan iyaga qudhoodu laakiin kuwana high strong-ya marka waxaad samaynaysaa waxaad furaysaa linkigaasaad furaysaa jaamacad kasta halkan ay ku jirtaa linkeedu excel halkan ay ku jiraan marka imika eeg jaamacadda ugu horeeya markaa buluugu saaraya maan furay waxaa la yihahdaa Kyoto Institute of Technology marka halkan aan baarayaa jaamacadda wixii aan moogtay information science beeran ku hayaan waxyaabahaas oo dhan baan eegayaa waan iska fiirinaya jaamacadda si guud baan u fiirinaya maxay ka shaqeysaa environment-geeda academic program-keeda haddaan eego academic program-keeda aad isuga fiirinaya marka imika waxyaaba engineering la xiriira information science markan okay undergraduate shaqada ugu badanna halkan ay ka dhacdaa marka inaad moogtay aad u baadha marka imika waxaan furaya information
master program kan tegaya master program kan sii tago sugaan halkaa tago waxaad doonaysaa material applied engineering design fiber science information science okay information science baan tegayaa marka waxyaabahan ay haysaa laabkan baa u diyaarsan kuleelkan xog bay sheegaysaa computer system marka jaamacadan engineering bay badan tahay waxyaabahan lagu dhiganaya waxyaabaha software engineering waxa information security waxaan waa courseska waxyaabay bixinayso marka jaamacadan xogteeda aad u akhriso weey marka ka soo qaad anigu jaamacadan baan ka helay oo markaan ku qancay nidaamkeeda marka jaamacadu code bay wadataa halkaas ay ku wadataa codekaas ay wadataa waxa la yiraahdo Kyoto Institute of Technology marka form kan baan halkan ugu soo diriyay marka halkan baan gelinaya marka waxa weeye jaamacadu almost waxay wadataa 5201A waxaan gelinayaa 5201A intan markaan siiyo fiilkaygan aan doortay markaad eegto iyo research area waa highly matched b jaamacadani waa inay halkaas highly matched waa inay ku noqoto oo halkan waad arkaysaan xogtan raac the section code you will select the match on a specific university or retail okay waa highly matched waatan jaamacadda magaceedii graduate international marka name of the laboratory marka marka qaar halkan waxaa halkan eeg without pre-application marka jaamacaddani waxaan ka dhiganayaa 3 priority waxaan haysanay priority 1 baan ka dhiganayaa jaamacadaha qaar marka supervisor bay wataan imika halkan oo kale waxaan codsanayaa maxay baad gelinaysaa master baad codsanaysaa reasonka aad u apply garaynaysaa halkan ku qoraysaa jaamacaddan waa jaamacad wanaagsan waxyaabaha marka halkaa u fiirsada halkaas waa mandatory imika haddaan ka saaro xogtaas way baxday maarta aan dib ugu celiyo 5201A marka jaamacaddan waxaa mandatory inaad lab ka doorato iyo inaad doorato advisor marka jaamacaddan labkeeda waa kuwan lab information waa kan tusaale xaban doonaya anigu information security marka information security lab kan imanaya halkan aan gelinayaa marka waad qoraysaa gacanta ku qor marka waa kan qoray supervisor marka name of the supervisor kuna aad buu muhiim iyo supervisorka marka waxa la sameeyaa jaamacadu waxay leeyihiin moogtay meel laga helo supervisorada research center kaas inayna marka contact askaan eegno advisorada meel laga hela jira marka inaad aad u baadhay noqonaysa imika jaamacaddan Kyoto Institute of Technology repository ga eegana kan waxana wax kale inta badan meelahan ay soo dhigaan laakiin waa inaad baadho marka advisorada marka imika tusaale maadaama jaamacada kani masti tahay marka haddaana jaamacaddu hadday masti mandatory tahay oo inta badan laga yarweeragaalista haddii ay kugu khasabto waxaa la sameeyaa jaamacadda websitekeeda ka raadi meelahan bay qaar dhigaan way kala duwan yihiin researchka marka meel laga helaa jira moogtay fine researcher watan fine researcher baan eegaynaa marka area of study-geena saynu waxa weeyaan
ayaynu eegaynaa. computer system related bu ama tusaale information security oo kale. marka computer baan sii gelinayaa. marka imika wax computer la xidhay imika ninkan oo kale waa kan wuxuu weeye Department of Basic Science Associate Professor kanaan ku dhufo. okay, Master of Informatics ninkan qaybo xiiseeyo research enhancing foreign language waxaan baarayaa xitaa kan professorka doonaysa ayaad si gaar u baaraysa. waxaa xitaa mararka qaar la sameeyaa oo laga yaabo interview in lagu weydiiyo advisorkaaga miyaad la xiriir inuu available ku yahay iyo waxyaabahaas. marka magaciisaasaad soo qaadaysaa sidoo kale laakiin inaad gacanta ku qorto doonaya. waxaa sameynaa magaciisa marka halkan aad dadka gelin kartaa mar labaad magaciisa dib gelin kartaa halkan xogta. marka waxaan eegnaa jaamacadda labaad ee aynu resume-kan oo kale waa kan 510 2B iyadana waxay maaji. laakiin imika jaamacaddani khasab maaha mandatory ba maaha. imika jaamacaddan oo kale laga yaabaa inaad priority ka dhigan karto. halkan course majorka soo qabtay halkan waxa weeye master baad hadhow dooran kartaa markaad jaamacad timaado. markaad laakiin halkan master geliso automatically waa mandatory baad arkaysaa. okay, PhD dataadana waa isku mid. marka halkaa ka koobi waxaad programka markaad codsanayso soo qabanaya. halkan waad ka helaysaa liiska supervisorada. jaamacadaha qaar ma soo dhigayaan qaarna way soo dhigaan. imika waa kan jaamacaddan oo kale halkan aad ka helaysaa. okay, taa hore maxay okay taa hore anaa baan arkaynba halkan ay kusoo dhigtay inaanay soo dhigin markaad iska ereegi kartaan qaarkood ma soo dhigaan. waayahay marka imika waa laba choice weeye almost labada choice baad haysataa. okay, markaad intaa dhamayso ayaad labada waliba aad shaqada ugu badan la qabtaa waa jaamacadaha inaad jaamacadaha iyo iska baadho waxaad fiilka dooranayso. jaamacadda dooranayso qura maaha xitaa inaad fiilka iyo waxaan dooro eegto. waxa weeye admission requirement-geeda eeg ardayda internationalka ma aqbashaa waldow halkan ay kuleeyihin waa hay haddana inaad aad isugu eegtaa fiican moogta aad xogooda aad raacdo. haddaad doonayso mararka qaar waxaa laga yaabaa imika halkan research fielkani inaad doonayso inaad ka yar bedesho midkii ku yar dhow. marka imika tusaale kale aan waxaan doonay tusaale kale aan ka yar bedesho bal hadda wax security related marka information security kale aan doonaya inaan information security baan raadinayaa. marka information security core ku isbedelayaa waan soo koobi garaynayaa xagga maan imanayaa. okay, marka imika jaamacada intii ka duwan bay soo baxay kagaawe koobe waxyaabahaas resume-kan jaamacadahaas oo dhan way soo baxay. okay, Nagoya 4202B imika tan automatically baa laygu dooray waa mandate. ayaan automatic aan hubiya baan lay sorry inta hore uun gelinay. marka halkan advisorada iyadana waa mandatory halkaasaad ka eegsaan. waayahay marka kaa markaan sidaa ku dhamayno waxaad qoraysaa marka career iyo waxyaabaha balaankaaga waxaas aad bay muhiim tahay anagstuga. marka halkan markaad eegto anagstu ma jiro halkan kuma jiro. marka waxaa kugu jira halkan declaration qaabka loo sameeyo. marka halkan waa sample-kii weeye jaamacadaha iyo qaabka loo dooranayo. iminkan halkan waa sample yar oo lagu siinaya. marka kan waxbaa ka bedelin. iminka jaamacadahaas oo kale not mandatory baa
marka iyagu non mandatory baa aad kugu fiican raadiso ood ka raadiso jaamacadaha non mandatory iyo waxyaabaha dooranayso marka imika halkan graduate schoolka marka halkan liiska jaamacadaha si guud looga helaa dad jaamacad si gaar u baadhayso kale iyo marka ayaa si guud miyaguna waa kan koodkooduna waa kan oo haddaad halkan ka arki weydo marba halkan kuu soo dhigayo jaamacadaha haddaad hore wax uga fahmi halkan waxaad imanaysaa graduate school koorka ABA-ga jaamacadahaas oo dhan haddeerna halkan ku jirnay taana waan soo noqon marka annex 1-kii waan dhamaynay annex 2 waa tomat annex 2 waa tan waa waxa weeye word file-kaasaad furaysaa word file-kuna runtii aad buu muhiim yahay waa meesha shaqooyinka aad ku muhiim yahay aad doonayso inaad marka register halkan waxaad gelinaysaa magacaaga marka waa header of intaad furto baad magacaaga la gelinaysaa handwritten will not be accepted lama ogola inaad gacanta ku qorto marka hore halkan buuxbuuxideedna waad daabacanaysaa marka intaana daabicin waxaad qoraysaa shaqadaad imika hayso iyo shaqadii u dambeysay aad qabatay khibradaad lahayd current work iyo previous work shaqadan u dambeeyay imika caynkaasaan ahaa leadership-aan ka ahaa hogaamiyaan ka ahaa ama waxaasaan ka shaqayn jiray waxaasaan ka shaqeeyaa tii u dambeeyana waxaad leedahay waxaasaan qaban jiray waxaasaan maamuli jiray caynka intaa markaad samayso research plan baa loo baahanyaa daba saaxiib mastertaadu waa in research plan fiican leedahay marka waxyaabaha laga baahan yahay waxaa ka mid ah in title-ka introduction inaad samayso main body inaad samayso iyo inaad conclusion samayso intaaba wax weeye waad diyaarinaysaa marka waxaa la sameeyaa laysma dhibo current work-gaaga markaad xogtii soo qorto baad halkan soo gelinaysaa tusaale aan edit gareeyo editing baan ku samaynayaa marka hore edit gareysma weyda okay kaba soo qaado waxbaynu qornay halkan waxaan qornay tusaale kale 3 paragraph 4 paragraph midkiiba 5 lan yahay baanu tusaale kale qornay kaba soo qaado marka imika experience-gii waa kan ka soo qaado waxaan sample way wax jira ma halkan waxaan ku qoray marka waa inaad hubiso 150 marka saa highlight gareyso halkaas aad ka eegaysaa 300 marka aad buu badan yahay aad buu badan yahay 150 baa la rabaa okay aan highlight gareynayaa okay 100 wax weeyeen 149 marka daad sinaaf 150 word baa la rabay kan oo sidoo kale okay marka waa 2 paragraph 2 paragraph marka 5 lan yahay okay marka de 2 paragraph min 5 line iyo waxa tusaale aan ku siinayo anigu laakiin aad waxa laga yaabaa inaad qorto 3 paragraph oo midkiiba 4 ama 2 line ama 3 line wixii marka halkaas u baad eeganaysaa research plan-kaagana halkaas marka inta maad ka saabaysaa marka intaas ka dhili karayso ayaad research-ka qoraysaa intaas ka saaraysaa dana halkan qoraysaa haddii aad marka PhD if you are applying for PhD course with SDG marka scholarship kala ABA ka dambaysa SDGs la yiraahdo Global Leadership Program markaas uu ka duwan yahay marka okay important marka aad xogtan ogaato way marka dambayso xogtan iska saari kartaa haddaba career plan after graduation ka marka aad dhamayso marka tusaale kale waxaad leedahay de haddii aan marka aan helo jaamacadda helo oo aan marka ka baxo dalkayga aan anfacaya dalkayga ku soo noqonaya waxyaabahaas aad ka hadlaysaa moogta maxaa ku qorshaysan weey inaad qorshe lahaato moogta marka ilaa waxa la rabaa 400 ilaa 500 kelmadood adigoo markaas ku soo xidhaya career plan-ka marka inta marka samayso baalkan waa la seexaya waad seexaysaa waad daabacaysaa deedna waad seexaysaa deedna waad scan gareynay meel baad dhiganaysaa marka isagana waad soo upload gareynay oo document-gaad waad diyaarsanaysaa marka kaana saasaad samaynaysaa okay deedna waxa weeye score of examination English waxaan muhiim waa kan waa warqadii waxaad diyaarsan kartaa warqadan la yiraahdo media instruction hadii aan haysan marka shahaadadaadii dugsiga sare transcript-gii
marka sidoo kale waxaad samaynaysaa medical history aad buu runtii muhiim yahay formka yari. Okay, have you ever taken any marka wad buuxinaysaa have you ever taken any medicine or had a medical checkup? miyaad marna ma qaadatay? marka halkan waad buuxinaysaa waxyaabahan have you ever any illness such as heart ama diabetic ama waxyaabahaas oo dhan. waxyaabahan yes iyo waxa weeye noo kaga jawaabaysaa saasad wadaysa. kadibna marka waxaad qoraysaa date-ka, name-kaaga iyo markaa saxaaga aad soo qoraysaa bis waad save garaynaysaa. marka waxa la sameeyaa markaad doonayso markaad intan dhamayso kan gaar bad iminka kan application formka intaynu sidaa u haylan garayno ayaynu gaar u save garaynaynaa. file baan tegayaa, print waan leeyahay, print as a pdf. marka selection iminka waan select garaynay soo ma intaynu select garaynay marka pdf nooga dhig baan leeyahay. marka pdf ayuu nooga dhigayaa deedna magacaas aad ku save garaynaa. inta badan magacaaga lagu qoro halkan instruction-kan aad u raac instruction-kan baad raacaysaa waad akhrin doontaa wax kasta ku sheegay. marka intaa markaad diyaariso almost waxa weeye email baad ku diraysaa oo waxa weeye intan baa ku xigta inaad health certificate iyo waxyaabahaas aad marka intan inaad diyaarsato. marka application-ka iyo qaabka loo xirinayo intaas ugu muhiimsan application formka iyo list research-ka aad garanayso. marka shaqada ugu badan ee qofku maraa waa shaqadan jaamacadaha iyo kala xulashadooda iyo inaad buuxiso annex 2 oo research oo inaad buuxiso after graduation plan-ka iyo marka current work. taasna waxaan filayaa inaad iska fududahay. magacaaga halkaas aad gelinaysaa marka saas baad ka dhigaysaa. marka dhamayso waad daabacanaysaa deedna waad seexaysaa dhakaad ka seexaysaa page kasta waad seexaysaa page kasta. iminka halkan waa labada page hadday tahay labada page waad seexaysaa. okay, marka xogahan oo dhan akhri dabiyada dacwo akhrisan kartaa kuwan oo dhan akhri waxyaabahaas oo dhan baa akhri waayo iyaga ku siinaya every step. waxaad kaloo akhridaa application formka ayaa wataa check-upka checklist-ga. marka checklist-giisu aad buu muhiim u yahay. step kasta wuxuu ku oranayaa ma qaaday ma verify garaysay. marka xitaa waxyaabaha qaar oo laga yaabo kan aan ilaaway halkan kaga tegay isaga marka markan waxaan dhamaystay dib ugu noqonaysaa miyaad dhamaysay. marka halkan wada tig baad saaraysaa yes every step oo kale every step kasta marka halkan eeg all documentigaas oo dhan ma haysataa intaanad sameeyad garayn xitaa intaanad documentiga soo sameeyad garayn. marka ma wada check garaysaa yes baad saaraysaa halkan marka eeg all document inaad hayso application fogay annex 1 annex 2 annex 3 oo medical history university diploma academic transcript copy waxa weeye medical history oo marka caafimaada official English proficiency haddaad haysato master degree ma garanaysa thesis kama ifani haddii aad xitaa research hore u samaysay. marka waxaan filayaa intaa iyo dee inta waxaan filayaa si fiican u fahantay. waxaa jira markaa faylashanka hadda maxay yihiin kan iyadoo gaar loo sameeyey oo university information baa gaar loo sameeyey ma garanaysa. marka waad ka sii akhrin kartaa iyagoo lasii kala qaybiyey xogaha jaamacadaha oo gaar laga dhigay. marka kuwan iyaga kuma waad baaran kartaa extra information baa lagu talagalay iyo koodhadhkooda iyo waxyaabahan. marka waad ka sii akhrin kartaa oo way kuu sii fududaynayaan. okay, next one. marka kuwan aad baad waxa weeye jaamacadahan weeye waxa ku hagaya marka guideline halkan baad si fiican u akhrin doontaa. marka almost intan waynu dhamaynay. inta marka dhamayso waad submit garayn doontaa deedna waxaad sugi doontaa document selection-ka deedna interview-ga waa lagu soo sheegaya meelaha almost after 1 month ama ka yar baa lagu odhanayaa waad gudubtay. marka interview isu diyaari inta badanna inaad emailkaaga ka warhayso waayo waxaa laga yaabaa interview-ga markay kuu soo diraan hal maalin ka bacd hal maalin bay inta badan dadka siiyaan. marka maanta kale kuu soo dirayaan waxaa laga yaabaa brio kale inay ku soo galaan interview. marka haddii aanad daily aanad subax kasta marka soo kacdo aanad emailkaaga check garayn inuu waxa laga yaabaa ku dhaafa laga yaabaa. marka inaad fursad damad ku helin waa adagtay.